وهذا السلام ميل والبوجوتين هسه عصب هدى يوايا عصب ayaan rabaa inaan fikirkeyga ku qorto marka hore ku bilaabo وهذا السلام saaxiibayaal meel walba joogtiin waxaan rabaa inaan fikirkeyga ku biiriyo maadaama aan ahay shakhsi Soomaaliyeed wixii markaas cusubna markii la isoo sheegay ama aan arkaba inaan fikirkeyga ku biiriyo wax badan maraba inaan ku biiriyo 5 daqiiqo raba inaan ku biiriyo kadibna aan cashada jaamacadda qalin qoriga iska diyaariyo waad maasantiin meel walba joogtiin iyo waqtigiina qaaliga ah sidaad iigu hurteen intaba waxaan rabaa maalmaha waxaa soo batay barnaamij asad boojwa ku salaam saaxiibkay Axmed Cusmaan Muuha iyo ani hooyga farxad dhamaantiin soo dhawaada saaxiibayaal intii aan arki waayo oo isheedu ay qabo weysana waxaan leeyahay raali ahaada soo dhawaada barnaamijkan Somali Week maxaa ka run ah maxaa ka sax aniga dabcan waxa igu taqaanaan walaalkay haduu qaldiyahana uma hiilsho qof kale on ila dhalan xataa on ama qabiil wadaagno ama Soomaalinimo wadaagno ama qaarad wadaagna xataa haduu saxsayaan waa ku taageeraa hooyaday mid ka dhashay haduu qaldiyahana ma taageer aqrana ma leeso istaajinayo waxas marka fikirkeyga anagoon cid ka cabsaneen cidna ka xishooneen oo runtii Ilaahay igu jecel yahay inaan ka hadlaan rabaa haddaad iga xumaadane raali ahaaw oo aniga aragtideeda ka hadlay sida wax u jiraan ma ahan haddaad igu taageertana waa alxamdulillah waa sidii la rabay midda koowaad Lucky Xaaji Wacees ayaa videogeeda daawaday oo ka hadlayso arinta Somali Week horta Lucky ha ka hadasho maxumo fikirkeeda ka hadashay eed ma laha si wanaagsan oo aqalnimo ku dheehantaana way u hadashay si wanaagsan oo wax garanimo laga dhadhansan karana way u hadashay sida u hadashay oo reer Soomaaliland aysan ugu gafin anu intaas aan rabay wayna sameysay wayn u hadashay Lucky kaliya waxay ku qaldaneed fanaaniinta UK inay dhahdo waa dad dhiiga laga meertay ayada iyo gabadha kale shaxshaxley la fadhisay waxay ila muuqatay arin aad u qaldan in dadka wax laga sheego markii aad cid inaad wax u sheegto rabtid hadalkaada waa inuusan xanaf yeelan hadalkaadana waa inuusan dad kala durin adoo wanaag raadinayo dad kale inaad durtid ayaa waxay keeni kartaa dhibaato kale laakiin sida ay u hadashay oo ayaa cajiib ahayd oo aad ii soo jiidato waana markii ugu horeysay oo daawada Lucky Xaaji Wacees oo hadlaysa qoto marka laga reeb ana qoto baba ka helo riwaayad qoto laakiin sometimes YouTube ka anoo iska daawanaa heeso isoo gashaan qaabkay Lucky u hadlayso iyo fanaaniinta kale riwaayadaas jilay aad ay cajiibsay Lucky u hadlaysana waan rabay waan arkay Lucky waan maasan tahay abaayo horto fikirka Somali Week anaga sida u aragno iyo talada adiga in lagu sheego adiga waxa sheegtay cid qaldan iyo cid saxsan iyo sida wax u aragtid laakiin anagana waxa rabnaa in adiga ku sheegno wixii seen oo la muuqdaan hadii aan ku cisho karno ku cishano oo hadii kalena aad saxsan tahana hore u socotidba horta Somali Week barnaamijkan UK oo ka dhacaa sanadiina waa hal jeer sidaan filayo Lucky adiga horta waxaad marti ku tahay Ingiriiska fanaaniin badan aan kaaga soo horeeyay Ingiriiska kuwa deganaay iyo kuwa Holland ka guuray iyo Finland iyo Scandinavia ama Europe inteeda kalaba kuwii deganaay ayaa horta mudnaanta leh dadka soo guurana waa balan B walaashay adiga maadaama aan marti tahay kuma dhahayo adoo marti ah maxaa fikirkaaga u soo gudbisay ma ka wado dadka kaaga soo horeeyay mudnaan laha ayay ila qurux badan tahay horta aragtida ma ahan iga ma ahan waa cusubta man hali kartid meega ah jadwalka Donald Trump kuma shaqeynayo laakiin waxaan ka wadaa dadka kaaga soo horeeyay ayaa lahaa inaa inta la tashatid aad shir qabsataan oo war saxaafadeed ka soo saartay adoo ku daba gambanaya dadka meesha deganaa dadka wadanka deganaa oo farxiifiska kamida kuwintaasha kamida Cabdi Holan baa kamid hadaa qaldaneen adigu Ingiriiska nimcaya Simba ku jirta Maryam Mursal baa degan fanaaniinta ugu badan ee ma soo mar taariikhda degan
in iyagu intay fariistaan ee wada hadlaan ama adigu fikirkaaga ku biirisid iyaga ay soo gudbiyaan ama hadalkaada ka dhadhansana xataa in iyaga ala soo shirto dhahdid adaan nahay fanaaniinta UK maraba inaan magacyadooda sheega xataa jamac inaa u hadlaysa laakiin adiga shakhsi ay u hadashay okay maadan iska soo hormarin kuwaas maba dhicin soo maaha arrinta saxda u jirtana si fiican uma taaban Somaliland iyo Soomaaliya ma warka waxa laga dhadhansan karaa marka horta Somaliland waa ummad walaalaheen ah si kale hadaa u dhigno beesha Isaaq iyo Samaroon baa halkaas ku badan iyo jufooyinka kale Soomaaliyeed iyo Universal TV ma soo dirstaa may waxaad cambaareen bala sheekada gadaal baad ka qurux doontaa sidii ila tahay aniga waxay la tahay waad ma sintiin asdo ma santahay aniga waxay la tahay Somaliland erayga aan ayda hadda aniga wax ma sheegin lakiya kale arinteeda laakiin aniga marka teeda dhiman fanaaniinta marka laki waxaan ku soo gabagabeyn lahaa arintaada horta arin fanaana kaadis fanaaniin badan oo Soomaaliyeed magacooda wicinaha waa xumeysay sharaftooduna meel baa uga dhacday oo waxa ku tiri buunsha degan dad feerif gabadhi xal soo jawaabaysa hadaan qaldaneen reer xamarka aheed oo dadka cadcadka ah wiligeed video inay soo dhigto taas qorshaha taa uma jirin laakiin waxay ka dhaqday fanaaniinta Ingiriiska jooga buunsha ah ay ka xanaaqday taasaa gubtay anigana taasaa gubtay laki marka laga reebo intaas waa saxsaneed laakiin aragtidaada ma xina aragti xun ma ahayn daliil lama lahayn laakiin Ingiriiska fanaaniinta joogto buunsho waay taas hadal meel kugu qorno waayo ceeb ah inaad raali gelin ka bixisan jeclan lahaa taas waa midaas midda Cabdiqaadir Boos ah aniga aragtideeda ahna waxay tahay horta Soomaaliya mar hawiye daarood laba ma soconayso inaad dhaadiin Isaaq waa naga tirsan yahay kalama maarano waxba isku keen darsan dad kala dhan ma nihin waa way ina mar dhahdaan taas waa way ina dhaadaan fanaaniinta BK iyo Yurubgeeya baxaayo ee Ingiriiska tagayaan ayaga dadka shalay dhihis Soomaha kalama maarano kalama tagno kalama baxno waxba isku keen yaalo maxaa kugu jaban hadee baxaan marka maxaa ku jaban waa Soomaali way dileen haddaad kala go'deen oo idinka ogashihiin in Somaliland go'do macnaha fikirkeyga ka la idinka wax Soomaalida waxyaaba dhiba waxa oo aan Soomaaliland rabin inaan عشان أكدي دينا يعني حداد الربين إن Somaliland أي قاضو بحق أروح معنا إذا BK يرجعيني بحال وركاس بحق كده دنسن كرا إن إذا كنا أبد ديار روتين إن Somaliland على جوني نقطة لكن حاسس إن ما إذا كنت جرتوا إن ده جون ربنا حداي صام أدي هوية إساق إذا سميين ما حكوا جبان أوكي أنا كسر فيرن إن عباس تيف كفيرن Somali وابهلبا إساق ما جو إن بكسر قبا isaga noo baxay dibka ku jiro muxuu yahay Soomaali waa Soomaali taas waa gooni way haddaad ogashahay in Somaliland dadka waqooyi daga ee go'aan oo aad go'din u ogashahana oo goon istaag u ogashaa waad ka xumaan kartaa arintan ina kala saartaa fiican haddaadan ogoleen dadku waa hal haddaad ogashahay in Somaliland ay go'dana waad ka xumaan kartaa ma waxa ogashay marka saasa ogashay Soomaali fikirkiin waa cadeysatay saasa aniga ogahay Somali week waa Somali magaca waa Somali BK habbo dayacdal loo shaabo qadarkay waa habbo macaan gaabo taas waa gooni waxa kale raba marka aan ku soo gabagabay aragtideeda gabadha barnaamijka soo degsato ee leenkan uu xiray yahay arin kale raba inaan 2 daqiiqo ku soo gabagabeeyo qalin qoraya isugaay gabadha barnaamijkan uu xiray leenkan wax yar Soomaaliyeey waxaan rabaa inaad wax badan oo badan ogaatiin ilaahay baan ku dhaartay wixii jira idin sheega ilaahay baa ku dhaartay waay ninka ka xumaasay u taala gabadhan xogteeda anu shakhsiyan ma garanayo laakiin close friends isku yihiin iyada u dhow Ingiriiska gabadha degan ayaan waxaan ka xog wareystay barnaamijka xal waa ka soo hadli karay habeen horena ka soo hadli karay laakiin waa ina xog raadiyo dadka qaar amal naacis ka soo dhahamay gabadhi waxa soo ogaaday inay u dhalatay waqooyi beesha Isaaq hadaan qaldaneen dad sida xanta ku maqla waay gabadhan horta Cabdikariin Jiire keentay hadda kulli Isaaqna ma aha dadka ka xun saan filaya waay ani waxba ma hubo laakiin Cabdikariin Jiir nin reer Muqdisho ah aan ku ogaa way keentay Soomaali wuu joogay wax ku jabanna ma laha laakiin xanta aan maqlay waxay tahay
hadda barnaamij aan habeen hore ayaa leenkan xiray habeenka ku xiray waa xiray ilaa haddana soo alla hadlay gabadhan sideeda hadii wax la qariyo horta qurun baa ku jiro Soomaa wax hadii la qariyo waligood ma hagaagaya ani wax wadiga ma qarnay gabadhan waxay rabtaa nin Soomaaliyeed ama saakha noqdo afka Soomaaliga wixii ku hadlo ama dayaxdal nuur shan noqdo ama iidla yar ha noqdo ama qadarkeeyo ha noqdo ama Yurubgeey Axmed Hargeys ha noqoto gabadhan waxay rabtaa qof Soomaali ah ay damiin ka noqon kartay rabtaa qof Soomaali ah war fiiri ciyaar maaha in qof la keeno 30 kun 40 kun oo dollar liga iyo baasaboorka 60 ka waddankaada dhigaysa yaa u dhiga aniga maanta runta marka ka hadlay nin hawiya ah example nin samaroon ah ma ka dhigi karo ma aqaan nin burcay boosas kiimaada ma ka dhigi karo aqoon u mali waa walaalkay laakiin ma ka dhigi kari ani ilaahay baa laga cabso ma laga dhigi karo damaanad ma ka qaadi kari damaanad waxa ka qaadi karaa ninkii u tala oo salkiisa iyo baarkiisa wax iiga imaada oo raac kara deenta yaa la siiyaa dukaan markuu ku furaya deen yaa siinay adi Soomaali socoto dhan deen ma siin kartid ninka taqaanid inuu wax ku keeni jiray ninka aragtidiisa ku deeqdo ninka gurigiisa taqaanid ninka ku qabiil ah waa saas waay dhaqan hadaa runta lagu nicin sida wax la isku siyaasaas ah that's true gabadhan ma taqaan nin hawiya ah idaaro toona ma taqaano ilaahay aad ku dhaarshay ma taqaano isaaq nimcaan maxay u keeni weys samaroon way maxay u keeni weys qofka asal fasalkiisa ee taqaanay keysata si ay u ximbaarto mas'uuliyad xumada hadhow ka imaan doonto 106 fanaana joogta Hargeysa maxay wada keeni weys aqli ha shaqeeyno iska keen ma waxaan iska keen ma aha okay gabadha way keeni weys Soomaa dhanka xuma negative ka fiirinayna gabadha wanaageeda waa ka hadlay wayba keeni weysaba dhanka xumaanta noo aadiye markaan wanaag waa taas bogto xumaanta aadeyna maxaa loo waayay nin degree imilifla ama daarood kala ama hawiye ah oo wax keensaday ilaa gabadha Ingiriiska iyada ma lahayn 100 qof baa leh awaamir iyo sharciyo leh oo karti iyo sharaf iyo ganacsi ku wada Ingiriiska ama Norway ama Finland Sweden ma idinka keensataan dayaxdal luurshe ama iidla yare ama fanaa qadarkeeyo ama awooda u leeyihiin waa keeni kartii idinka ما اللي حميستيالا كيني كرتين أو مجاجلستيالا كيني كرتين أو فنانين باكيسة كرتان أو أبوانات كيسة كرتان ما إذيك كيستان قرطة وركيك ما فهمتين فوريلا يويا فوريلا ويكنت يويا فحوة فوريلا وسمران بقى رنك رلا فتي صوصي إساق سماه ساق يا ساق ما يشاكد على سعيد شاكد وقري واحد لا مجرتو أريق هدا سوق قال رمتا يقول ماني نكي يقول نعاه يقول نعاه إلهي سبحانه وتعالى يا أبورتي إقلقي وحرالي إيجا الشيء يعني حدي ورك اللي دوغو ما نقول بس صحنا لكن هم تدير الشيء ورك واحد ما فهمت وركي وها حمر كتجي ريال مقدشة إنجليز كجوج هديسن هل مليون كبنين كما يرى هل نم إسحاق قام فلان كاسد مالوي كبداس قف كمركو ضد كمركي ولا الجيفان في الوحباي دي الشيء اللي جا عن أفريقيا جو كينيا dadka subaxii jiifaa ahaan jiray oo aad u jecel hurdada hadda qal marya dafaa markaan jiifno qolaa waxa ku seexan jirnay 4 qofood waa wada jaaran noloshii Kenya way marka wadan ku cusbeen Kenya marka kii hor soo kac way dhibi jiraba kii soo kac waa ku xanaaqeen anaga maxaa u kacday maxaa hurdada uga toosta waa jiifna macna Soomaalida taas way dantiisu yaqaanaa email u socdaa quraac u doonaa ilaa waxbaad ka doonaa nagu ma jirto hurdada noo baxees feeri waxa idin sheegay qofka Soomaali waa wada jiifaa ninka wax yar sameeyay horumar istaagani waa lagu dhagaa dhakab ma fiicna gabadhan isaaq waa hadda isaaq kaysata xumaanta ba ka hadleena mood dhanka wanaag waa diiday soo ba gabadhan waa isaaq hadda isaaq kaysatay furina waa samran waa ka qaad saaxib thank you weekend soo ma may waqooyina bas ku soo qabo waqooyi kanta lagu leeyahay bari hadii hataa furila kanta waqooyi wada kanta waxa ku sheegaa gabadhan hadday isaaq xataa keensato dhinaca xumaanta ka fiirinay maxaa loo diiday boqol ma jeerteen marixaan ogaadeen abgaal iyo habar gidir inta joogto ma keensataan yaa idin diiday cid idin diiday ma jirto walaalayaal waxa idin sheegaa gabadhan cidda taqaano ee mas'uulkan Ingiriiska la meesha ciyaar ma taalo gabadhan Soomaalinimo iyo wadannimo u shaqeeya dadka Ingiriiska jooga stress ku wada isbitaalka ee habi ka dhigaysa maalin walba fanaan u keenaysa maalin walba fanaan u keentaa gabadhaas Ingiriiska okay
saddexdaas qodob waa ka soo tagnaba dhan kale aan fiirinayna haddana boqol meel waxaa idinka tusaa fanaan maanta BK lamida xumaantiisa iyo samaantiisa ha ii furin please isagay u taallaa adduunyaa qiro ani qof xun iyo qof fiican kama hadlayo laakiin fanka ka fiirsanayna dad iskale BK cunsur waa BK saan waa shaqadeeda ma aan waxaas hadduu cunsur yahay asaa isku taallaa hadduu cunsur yahay hadduu wanaagsan yahay asaa godkiisa la galaya muhiim maaha laakiin waxaan kuu sheegaa BK fanaan lamida geeska Afrika ma joogo BK fanaan lamida ma joogo maanta haddii aniga Cabdiqaadir fiilaya keenay la BK waa keenay number 1 BK ka sala runta ka ilaahay ka cabsada BK is number 1 Soomaaliya markii geeska Afrika la Europe gain is number 1 farxiifis kama ma jirto maqto farxiifis hada jir leh waa doodi lahaa ma faham BK iyo Europe gain waa dadka soo xulan lahaa maanta fanaaniinta dhanaa soo xulan lahaa laakiin labadaas waa markaan hool ijaaro oo lacagta iga soo geli karta labadaas leh waay dadka promoterada Europe joogana way yaqaaniin arintaas marka hool $1 iga galo oo var على شفارتي وحال في إنجليزي كمان هذا قالوا واحد إلى لسه مركي اللي قدر لعبته هذا ماشي هولك عن قبصده يوروب واقعي هولك يا إيمانا يا فراني تغير مكان كنسة ده يا إيمانا يا عم درجسات يا إيمانا يعني ده ساق قبصده وسكفت معايا معنا مركي درجسي عم درجسي يوروب جاي مركي لسه فيرشو يوروب جاي نمبر 1 أمانة سومالي سوما وما كفايه لكن أنا يسأل تاي سيد صحده وحما بقرني نبغى فنان وفنان always لكن وكالة تاجر بديه يوروب جاي العقبة يسوق لي ثاني لكن فنانين تقارن وحبي يقوم يسوق لها يعني أنا ما قاعد أقول شيء واحد يسوق لها إلى أنتم مجرم وأساس BK يوروب جاي وضاق عن سميلها عنيق ما فهمت أنت أصلا ربع إن عين اللي وذاقو قاضي بدنا واكسو هاللي سيد واحد أجران واكسو هاللي ما أنت يوروب ده أكتر ده المريرة أيها كين لها أنت بقولان فنان أو إنجليز أمريكا جوتو نوت أمريكا سكان ما مسؤولية بدنا وبانتا مسؤولية بدنا وبانتا ما جنبنا يعني يو نوت أمريكي ما هذا فنان أنتوا كمان رومنا I know it لكن بروسيس ير معها قف كمان كو يسحل قامنه خلّ دايو قف كمان كو يسحل قام هوشيسا هوتو والله وحن حنكم مغلي قبدان dadku ugu dhadhow saaxiib la waxaan ku dhahay maxay fanaaniinta qaar ma carbaaba hadaan hebel waa markaas laakiin raacnaa inaad dhaha mar hebel maxay u keenay weysay oo reer waqooyi ah waay number 1 Europe jacayl ku jiray lagu dhahay number 2 mas'uuliyad kama qaadi karto iska raaf koonfurta la gaarin gabadha waa ceebobay qof nin xil qaaday qaadi wax yar ma mas'uuliyad wax yar ma intaas rabaa dayaxdal nuursha hadda sida xogta ku helay dayaxdal nuursha iyo ninka abwaan maki xaaji banaadir next year hadda cid idin sheegto ma laakiin ana idin sheega labadaas on the way ku soo jidka ku soo jiro taas ay idin sheegaa sanadka dambe arki doontiin hadda cid sheegto ma jirto waa laga xishoon ani wax waa sheega aniga laki xaaji waas waa ma santahay aragti badan oo qabil lahayn ka hadash war fiican ku hadash marka laga reebo ina reer buush ku tir fanaaniinta Ingiriiska uu vaxton ku siyaanay waa ku saxay waana ku taageeraa gabar cod karana waa tahay gabar geesiyadana waa tahay gabar iska adagna waa tahay gaashaankaaga liima keeno laakiin arintan martiya ka tahay Ingiriiska joogta 7 bilaa joogta saa warkaada ka dhadhansaday walaalay martiya daa tahay gadaala lees marsha aaqiladna waa tahay waana ku hadalkaada uu ka soo kula sheekaysan waligay life u sheekaysan isaanan arag laakiin qofka markuu hadlayo face-kiisa ka garan karaa ina gabar caaqilada tahay ina gabar wax garada tahay laakiin martiya taa walaashay pay close attention tartiibkaaga Ingiriiska kuwa jooga arintan ayaga u taala waana arin Soomaali weyn u taalo hadii saaq la keen hadii dhul baanta la keen hadii ebel la keen arintaas ku soo gabagabeeyna laba isma qaadato labo muslimiin u dhijir laba isma qaadato Amerika timaanta kuwaysta la military constitution saber aqaantos waxa ku sheegaa laba isma qaadato isaaq waa naga tirsan Soomaaliya ka tirsantahay iyo Somaliland ayaa kaliya meeshas aad mis qaades adiga ogolow Somaliland inay ka tirsan tahay cid baxdo leen hal qafatiin taas soo ogolow loo xaso tiiri ama Somaliland waa iga gooda dheh ayagana baxan anigu waa qadsanahay way kala waay saaxiibayaal waa ku maasantiin kun iyo wax ka badan oo qofood inay live yihiin ay si fiican i daawanayaan tan iyo barnaamij xasaasi oo sidan oo kale intaan kaga kulmi doonan
واد ما سنتين وأنا كرالي قلنا يا إن كومنت بدل إيسو قرتين لكن حماسة ضوء كعصن أيان ربي إن أرتدي إذا لو داقو إذن كنا سيد يقول هيلنتهين أيان إذا كوجو هيلن هاي وما سنتين عافمت بدل إذن رجينا وبوسكو إذن له نبدأ السلام عليكم ورحمة الله.